Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha Jubbaland ayaa waxa uu dib ugu laabtay magaalada Dobley ee gobolka Jubbada Hoose kadib markii uu magaaladaasi toddobaadkii hore ka soo ambabaxay si uu u furo kalfadhiga baarlamaanka Jubbaland. Axmed Madoobe waxa uu la kulmay saraakiil ka tirsan ciidamada ammaanka ee maamulkiisa waxaana magaaladaas la sheegaya inay ka socoto abaabul dagaal oo Jubbaland ka wado kaas oo la xiriira dagaalkii ka dhacay Buulaha gobolka Gado ee Soomaaliya. sidoo kale waxaa xaalad deganaanshaha laga dareemayaa guud ahaan gobolka Gado iyo Soomaaliya gaar ahaan Jubbada Hoose oo dhowrkii maalmood la soo dhaafay arrimo siyaasadeed oo shirar ku saabsan oo Jubbaland ay ka jireen. Cabdimajid Abbas Aadan ayaa iga warramay xaaladda Jubbaland. Xuseen Cabdulle Maxamed madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa maanta waxa uu dib ugu laabtay magaalada Dobley ee gobolka Jubbada Hoose halkaasi oo muddo ka hor uu ku sugnaa isagoo markaa haatan sida aan wararka ku helaynaba ka bilaabay kulamadii uu horay halkaasi ugu soo tagayba si uu markaa kalfadhigii labaad ee baarlamaanka Jubbaland oo 7 bishan uu furay hase yeeshee kulamada ugu dambeeyay caawa madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu la qaatay ayaa waxa ay yihiin saraakiisha ciidamada kala duwan ee halkaasi ku sugan haddii ay noqoto kuwa federaalka iyo waliba kuwa Jubbaland oo muddooyinka ugu dambeeyay madmadow dhinaca markaasi kala shaqi uu soo kala dhexgalay hase yeeshee kulamadaasi ayaa inta badan markaa waxaa looga hadlayay khilaafka iyo waliba madmadowga ciidamadaasi soo kala dhexgalay. marka ilaa waqti inta uu qaadan karo safarka madaxweynaha ama halka uu sii joogi doono ma shaaciyan madaxtooyada ama xukuumaddiisaba ilaa iyo hadda madaxtooyada Jubbaland ma aysan shaacin inta uu madaxweynuhu markaasi joogi karo magaalada Dobley. sidoo kale waxaa jira warar hoose aynu helayno oo sheegaya in madaxweynuhu muddo kooban halkaasi uu ku sugnaan doono walow muddadaasi aan la shaacin isagoo ugu sii bixi doona safar magaalada Nairobi uu gaari doono caasimadda waddanka Kenya halkaasi uu uga qayb gali doono shir markaa dowladda Kenya madaxdeeda uu la qaadanayo oo looga hadlayo arrimaha iyo waliba xiisadda markaasi iminka ka dhaxalsan ciidamada Jubbaland iyo kuwa dowladda Soomaaliya ee dhawaan ay geysay halkaasi. si guud iga waran Jubbaland Gado waxba ka jira jubbooyinka meel ka mid ah dagaalada ka socda way shabaab iyo ciidamada Jubbaland ku dagaalameen siyaasaddu ma wanaagsana marka maxaa kaaga muuqda deegaanka ilaa iyo haatan waxaa iga muuqda in ciidamada Jubbaland ee ku sugan gaar ahaan gobolada jubbooyinka ay muddooyinka ugu dambeeyay ee dhaqdhaqaaqyo xooggan ay wadeen shalay gelinkii dambe ilaa iyo waliba xalay habeenkii ahaa aynu ka soo gudubnay waxaa sidoo kale jiray howlgallo ay ciidamadu ka sameynayaan deegaanada dhaca galbeedka magaalada Kismaayo ay ka mid yihiin deegaanka Janaac Cabdalle oo qiyaastii 60 kilomitir dhinaca galbeed kaga beegan iyo sidoo kale deegaanada Beerxani iyo Kamjaroon ay sidoo kale ciidamadu howlgallo ka sameeyeen walow inta badan aysan laamaha amniga aysan u faahfaahin howlgalkaasi ee waxyaabihii ka soo baxay laakiin ha yeeshee howlgalku sida aan wararka ku helayno ilaa iyo haatanta in uu socdo ay ciidamadu ka wadaan. sidoo kale dhinaca waqooyiga iyaguna waxaa la sheegayaa in dhaqdhaqaaqyo ay ciidamadu wadaan laakiinse aysan jirin wax dagaal ah inuusan ka dhicin ha yeeshee laakiin al-shabaab ayaa dhankooda iyaguna waxa ay xoojiyeen weerarada ay ka geysanayaan xarumaha ay ciidamadu ku leeyihiin gobolada jubbooyinka